بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore shaqaalaha raadiyo buuxooda iyo inta haatan iladii gudahootkayga eegsanaysa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haa waa dhowahay, waad ku mahadsantihiin. tan kale xalay markii gaskaalkii ka saacaddu ahayd 3 habeennimo ayaa qaar ka mid ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee dayaxa iyo xidigaha adeegsada ee birjeex ay galeen magaalada Widh Widh iyada oo halkaas ay ku tageen si shacabkooda iyo dadkooda iyo dadka ciidanka u yihiin uu iskugu sheegaan inay la joogaan u yimaadaan hawlahoodii gudanayaan say ugu wargeliyaan maatada iyo carruurta in laga saaro magaalada, say ugu wargeliyaan in Widh Widh laga bilaabo caawa ay tahay magaalo xaalad dagaal ku sugan. saasay ku tageen, saasay kula dagaalameen, ay ku weerareen fadhiga ciidanka Soomaalidiidka ah dhinaca koonfureed meesha uu ka samaystay magaalada Widh Widh uu ka degay ay weerar ku galeen. ilaahayna haddii did xoog leh ayaa halkaa loogu geystay. ciidanka birjeexna wax ka dhaawacmay iyo wax dhib oo halkaa ku gaadhay ma jirto. mishinkii sidii loogu talagalay buu ugu fulay. wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye intaa u baahan odhan karaa. waatay wasiir waxaa jirta warar hoose oo soo baxay oo sheegaya in ciidamadiinu ay bartilmaameedsadeen saldhig ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin degmada Widh Widh oo inta uu weerarkaasi dhicin ka hor ay ka guureen isla markaasna rasaas haleel ah aad la hesheen saldhigaasi oo laga guuray. wararkaasi iyaga laftirkooda ma jiraan? maya ciidanka meesha tignikadoodu iyo calooshoodu ahayd oo taargetka iyagu ahaa baa waxaa ka soo hormaray infantarigoodii. infantarigaas ayaa xabadda iyada iyo dagaalku ku dhacay oo uu ku koobnaa xere ay ka guureen iyo meel ay ka digeen rabteen oo annagu aanu ku ambadnay adeer wallaahi midna ma jirto. waa tahay markaa khasaaraha uu sababay weerarkaasi ee aad qaadeen idinku mas-uuliyaddiisa sidaad sheegtay maxaad nooga sheegi kartaa? maxaase dhankiina soo gaadhay? annagu xaggooda waxaanu maqlaynay xabaad iyo qaylo iyo badhaabay ku dhacday hadallo xabaad iyo qaylo sidaasa, laakiin gudahana umaanaa gelin. wixii ka dhaawacday dee dhakhaatiirada ay geystaan iyo inta u shaqaysa iyo iyaga baa laga ogaan karaa. haddii ciidanka iyaga laga hadlayana adeer wax allaale gaadhay ma jiro. hadda iyagii baanu dhex joognaa oo aanu dhex darayaa, waana laba gaban waxa gaadhay ciidanka iyagana ma jiraan. waa tahay wasiir waxaa la sheegay in deegaanka Widh Widh ee gobolka Cayn uu soo gaari doono madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. marka miyaa la dhihi karin weerarkani wuxuu dhoolatus u yahay in uu baaqdo madaxweynuhu amaba bartilmaameedkan wuxuu ahaa madaxweyne Silaanyo oo meeshaba aad ka filaysan inuu joogo? Silaanyo hadduu yimaado khaatimo ma jirto weeyaade. marka intaasaan kaa odhan karaa. waana cay iyo waxaan jirin dadka dhulka u leh. dad Silaanyo u ogolla maaha, dad ku soo dhaweynayana maaha, dad qoriga uu keenay ka difaaci karana maaha. waa dad ciidankooda iyo shacabkooda iyo dhalinyaradooda iyo haweenkooda waa dad ku xilan. Silaanyo iyo midka yartooda inayna imaan ilaahay adigaba annaga uga ballanqaadaan dhicda mayso haddaana ku xisaabtanno ciidanka iyaga iyo dareenka shacabka iyaga ku jira. waa tahay iminka yaa Widh Widh gacanta ku haya yaase ku sugan oo ka taliya? ciidanka Widh Widh ku sugan nimankii kusoo duulay waa ku sugan yihiin. ciidanka khaatimana xaalay uu tegeyba insha allahu tacaala si degdega waxaan ballan idinka qaadaynaa oo shacabka dibad iyo gudaha ugu bishaareeynaa si degdega inaan 4 cisho nala gaadhin inay Widh Widh sii joogaan
markaanu khaatimo ciidankeeda iyo shacabkeeda iyo borogaraamkeeda ognahay waa baadan haddii alla yeelin wallaahi ma sii joogayaan gudahay hadda ku jiraan annaguna hareerahaanu kaga xeraysannahay waa noo goodoon intaa un baan hadda kuu sheegi karnaa waa tahay ugu dambeyntii maxaa idiin qorshaysan marka laga yimaado howlgalladan aad ka fulinaysaan deegaanada ka tirsan gobolka Cayn waxaa noo qorshaysan magaalada Widh ilaa uu dadkeedu inuu ka baxa oo maatadeeda laga saaro xaruuraheeda laga saaro wixii loo gaadana macraka dagaal oo kul ka dhacdo naf iyo maalba ay u horaan dadka ciidamada khaatimo iyo shacabkooda dagaal dalkooda iyo karaamadooda iyo soomaalinimadooda iyo midnimadooda ay ku difaacayaan uu ka bilaabo laga bilaabo bixid qorshahayaguna ka qarinaynaaleedkaa wey waa tahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Khaatume State Kayse Cabdi Yuusuf oo khadka telefoonka deegaanka Widh Widh iigu waramay aad baad u mahadsantahay wasiir waa mahadsantihiin